السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جانالك مركز السودة وهذا هدية ضم حسنتين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago gudoomiyaha gobolka Minnesota oo cadeeyay in ciidamada ICE inta uusan todobaadkan dhamaan uu rajaynayo in gobolka Minnesota intooda badan ay ka bixi doonaan arintaasi oo sheegay in aqalka cad iyo waliba Tom Harman uu kala hadlay arimahaasi waan idin la wadaagayaa arintii Epstein file waxaan ognahay in xubnaha Congress-ka loo ogolaaday in 3 milyan ee wasaaradda cadaaladdu ay soo fasaxday in ay arki karaan iyada oo aysan waxba aan laga reebin hadda waxaa jirta in wasiirka cadaaladda Pam Bondi maanta Congress-ku ay u yeereen isla markaana arimahaasi su'aalo ay ka weydiinayeen waa ay badiidayba su'aalihii in ay ka jawaabto oo su'aal kasto la weydiiyo ma aysan ka jawaabaynin arimahaasina waan idin la wadaagayaa waxaan ognahay ciidamada ICE in gobolka Minnesota ku dhawaad 3 bilood ay la soo dhaafay howlgalo ballaaran ay ka wadeen taasi oo saameyn ku yeelatay socodkii dadweynaha shaqooyinkii la aadayay iskuuladii dhaqaatiirtii dhamaanba ay arintaas xitaa ganacsiga ay saameyn ku yeelatay hadaba gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo shalay shir jaraa'id ay si wada jira u qabteen milkiilayaasha maqaayadaha iyo waliba ganacsiyada yaryar ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ciidamada ICE uu rajaynayo inta uusan todobaadkan dhamaan in ay isaga baxaan intooda badan gobolka Minnesota Tim Walz waxa uu sheegay in aqalka cad uu shalay la hadlay haweeneyda madaxa shaqaalaha ee Susie Wiles isla markaana Tom Harman oo Trump uu soo diray gobolka Minnesota ay wada hadal yeelanayeen labadii toddobaad ee la soo dhaafay marka hadalka gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa laga dhadhansan karaa in heshiis uu jiro gobolka iyadoo aqalka cad ay wada gaareen taasi oo sahlaysa in ciidamada ICE ay isaga baxaan guud ahaanba gobolka Minnesota waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka in inta uusan todobaadkan dhamaan oo hadda maanaha waxa ka harsan Khamiis iyo Jimco iyo Sabti iyo Axad in afartaasi maalmood gudahood uu rajaynayo in inta badan ciidamada ICE ay isaga bixi doonaan gobolka Minnesota waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ilaa iyo 150 askari oo kaliya sidii caadiyan markii hore ay ahayd in ay ka hari doonaan laakiin waxaan ognahay in Tom Harman todobaadkii hore uu ku dhawaaqay in 700 oo askari laga qaadayo ciidamada ICE ee jooga gobolka Minnesota marka 3000 ayaa hore u joogtay taasi macnaheedu waxay noqonaysaa in ilaa iyo 2300 ku dhawaad ama 2000 ba ay joogaan hadda gobolka Minnesota marka gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu leeyahay bilo ma sii joogi doonaan sidoo kalena waxa uu sheegay in aysan todobaadyo sii joogi doonin waxa uu yiri waxa ay sii joogaan waa maalmo taasi oo laga yaabo in berri oo Khamiis ah ama Jimcaha uu Tom Harman uu ku dhawaaqo in howlgalkii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota la soo gabagabeynayo isla markaana ay ciidamada ICE intooda badan ay ka bixi doonaan waxaan ognahay gobol kastaba xoogaa yar oo ciidamo ICE ayaa jooga marka sidii markii horeba joogtay 100 ilaa 150 askari waa laga yaabaa in looga tago laakiin ciidamadan 2000 kor u dhaafaya intooda badan gobolka Minnesota way isaga bixi doonaan sida gudoomiyaha gobolka Minnesota uu sheegay arintaasina waa arin wanaagsan waxaan ognahay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul dhibaatada ka jirtay ilaa iyo December kowdeedii marka howlgalkan uu bilaabay haddana la soo xoojiyay horaantii sanadkan bishii January oo aynu soo dhaafnay markii ilaa iyo 2000 oo kale ciidamadaasi lagu soo daray taasina waxa ay sababtay in gobolka Minnesota xitaa dhaqaalihiisii uu hoos u dhaco maadaama dadkii aysan shaqo aadaynin oo guryihii ay joogaan ganacsiyadii aan la furaynin taasina ay xitaa ganacsiyada yar qaarkood ay ku sababtay inay xirmaan sida gudoomiyaha gobolka uu sheegana ay jiri doonaan lacago lagu kabi doono oo ganacsiyada yaryar oo iyagu qaarkood xirmay kuwana qarka ay u saaran yihiin inay xirmaan maadaama uusan ganacsigooda shaqaynaynin sida darteedna kiradii aysan iska bixin karin haddaba waa kan gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo arimaha ka bixitaanka ciidamada ICE ee gobolka Minnesota ka hadlay dhinaca kale waxaan ognahay kadib markii wasaaradda cadaaladda ku dhawaad 3 toddobaad ka hor ay soo bandhigtay in ka badan 3 milyan oo faylalkii sirta ah ee Epstein files in cadaadiska uu sii kordhay wasaaradda cadaaladda waxa ay sameysay dadkii dhibanayaasha ahaa magacyadoodii adereesadoodii iyo taleefanadoodii ayaa la soo bandhigay dadkii ayna eedeysanayaasha ahaa ee dhibaatada u geystay gabdhahaasi yaryar oo intooda badan dad lacag leh iyo madax ah
waa la qariyay magacyadooda. taasina waxa ay sababtay in wasaaradda cadaaladda xitaa ay ku dacweeyaan dadkii dhibanayaasha oo yiraahdaan annaga informationkeena maxaa banaanka loo keenay oo dadkiina dhibaateeyeen loo qariyay. taasi oo xitaa wasaaradda cadaaladda ay ku qasbanaatay inay dib ugu laabato oo qaar ka mid ah dadkii dhibanayaasha magacyadoodii la qariyo. waxaa jirtay in isniintii hadda lasoo dhaafay xubnaha Congress-ka loo ogolaaday in ay arkaan Epstein files iyadoo aan waxba laga reebin. wasaaradda cadaaladda ay tagaan xubnaha isla markaana aan loo ogolayn telephone ama computer laakiin waraaq iyo qalin oo kaliya ay qaadan karaan, kadibna ay arki karaan dadka la tirtiray magacyadooda iyadoo aan la tirtirin ay si toosa ay u arki karaan. taasina waxa ay sababtay in xubnaha qaarkood markii ay soo arkeen ay yiraahdaan dad aan loo baahnayn in magacyadooda la qariyo ayaa la qariyay, iyadoo sidoo kale dadkii loo baahnaa in magacyadooda la qariyana aan la qarin oo lasoo bandhigay. waxaa jirta in wasiirka cadaaladda Ben Podi oo Trump taageero u ah isla markaana isagu uu magacaabay in Congress-ka looga yeero maanta, waxaana su'aalo laga weydiinayay arrimahaasi, sababta dadka dhibanayaashana loo soo bandhigay magacyadoodii, dadkii dhibaatada u geystayna la qariyay. wasiirka cadaaladda marka su'aalihii la weydiiyay dhanba waxay uga jawaabaysay wasiirkii iga horreeyay oo xilligii Biden ee Mary Carlick maxaa su'aalahan loo weydiin waayay. xitaa xildhibaankan hadda aan idin tusi doono waxaa la yiraahdaa Thomas Massie, waa Republican, xubnaha u ololeynayay in Epstein file lasoo bandhigo ayuu ka mid yahay. gobolka Kentucky ayaa laga soo doortaa. Trump xitaa hadda waa uu la dagaalay, maxaa yeelay Trump wuxuu leeyahay wuu iga soo horjeestay. xitaa doorashooyinka soo socda waxa uu leeyahay isaga kursiga waan ka tuuraynaa maadaama uu iga soo horjeestay. marka Thomas Massie ayaa su'aashan weydiiyey wasiirka cadaaladda Ben Podi oo waxa uu leeyahay maxay tahay sababta aad u qariseen dadkan loo baahnaa in lasoo bandhigo oo dhibaatada u geystay gabdhahaasi yaryarka ah, isla markaana sidoo kalena loo soo bandhigay magacyada dadkii eedeysanay, magacyada dadkii dhibanayaasha ah. markaasi waxa ay tiri maxaad u weydiin waysay wasiirkii cadaaladda ee iga horreeyay Mary Carlick ee xilligii Biden. markaasuu wuxuu yidhi waan ku faraxsanahay su'aashaasi inaad i weydiiso, laakiin arrintan qarinta Epstein files waxay soo jirtay dhowr madaxweyne laga soo bilaabo Clinton, Bush, Trumpka hadda Obama, intaasoo idil waa ay soo jirtay. marka wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay in cadaaladda laga daba tago. waa kan bal markii su'aalaha la weydiinaya iyo Ben Podi wasiirka cadaaladda sida ay uga jawaabaysay. waxaa jirta sidoo kale hadda soo baxaysa in Epstein uu qasri weyn oo dhul aad u weyn oo ku lahaa gobolka New Mexico, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Santa Fe. hadda waxaa soo baxaya marka in qaar ka mid ah gabdhihii jirkooda laga ganacsan jiray inta la dilay ay halkaasi ku aasan yihiin. ilaa iyo 2 gabdhood oo ajnabi ah ayaa waxaa la leeyahay waxay ku aasan yihiin halkaasi oo markii falka kufsiga loo geysanayay inta la ceejiyey la dilay. hadda marka xeerlaaliyaha gobolkaasi gaar ahaan magaalada Santa Fe waxay leedahay waxaan doonaynaa in aan helno ogolaasho aan ku baarno qasrigaasi weyn ama ranjigaasi uu ku lahaa magaalada Santa Fe ee gobolka New Mexico ninkii Epstein ahaa, si bal aan uga baarno in mayd halkaasi uu ku jiro oo dad lagu aasay, gabdho lagu aasay ay jiraan. arrintaasina hadda weli ogolaasho ma aysan u helin, laakiin waa ay ku dadaalayaan sidii baaritaan ay ugu sameyn lahaayeen isla markaana ay uga gungaari lahaayeen in ay jiraan gabdho halkaasi lagu aasay oo laga yaabo in haraadigoodii ama lafahoodii halkaasi laga helo. marka wayna arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordha haddii alla idmo. laakiin arrinta Epstein file maamulka Trump si kasta uu isku dayo in uu u qariyo amaba looga gudbo ma u muuqato mid laga gudbayo, maxaa yeelay arrintan maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii xoogeysanaysaa. xubnaha Congress-ka ee loo ogolaadayna in ay arkaan 3 milyan ee wasaaradda cadaaladdu ay soo bandhigtana waxyaabo cusub ayay maalin kasta arkayaan, maadaama hal maalin aysan ku dhammayn karin. iyagoo wasaaradda cadaaladda waa loo ogol yahay inay tagaan isla markaana qoraallo ay ka samaystaan waxyaabaha ay halkaasi ku arkayaan. marka wayna arki doonaa waxyaabaha kale ee kasoo kordha haddii alla idmo. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.